Halkan waa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waa magaalo horumar badan samaysay sanadihii ugu dambeeyay. Magaalada Muqdisho ay ugu dambeysay sanadkii 2014 kama jirin xilligaas goobo lagu nasto ama loo damaashaad tago. Hase yeeshee magaalada ayaa waxaa ku soo badanaya goobaha damaashaadka iyo kuwa nasiinada. Marka laga soo tago goobahaasi, waxaa caasimadda si xawli ah uga soo kordhaya dhismooyinka daaraha dhaadheer iyo hirgelinta waddooyinka casriga, kuwaasoo sahla isku socodka dadka iyo gaadiidka isla markaana ka qayb qaata bilicda. Halkan waa Pizza House oo ka mid ah goobaha lagu nasto, iyadoona dadka ay yimaadaan xilliyada ay ka nasanayaan shaqooyinka iyo waxbarashada. Inta badan goobtan ayaa waxaa yimaada dhalinyarada, kuwaasoo sheega inay ku qaataan waqti wanaagsan. magacaygu waa Keef, waxaan ka imaaday degmada Wadajir. Halkan waxaa u imaaday dalxiis iyo inaan ku nasto maadaama shanta maalin aan shaqeynayo. Keef, waad aragtaa meeshaan goob nasiino waaye, waa xilligii aad sheegtay inaad nasanaysay. Marka waxyaabaha is leedahay waa ku cajab geliyeen ama aad inta badan u soo aadda maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah inaan ku nasto game inaan ku ciyaaro PlayStation. Waxaan kaloo u imaaday meeshaan inaan asxaabteeda waqti kula qaato inta badan. والله meeshaan waxaa is dhihi karaa waa comfortable place. Yani maalmaha shanta maalin adiga everyday waa la imaadaa, laakiin qaasatan khamiis jimce ugu shidan tahay. Waxaan u soo hubey karaa maalmaha kale shanta maalin kaleeto waxbaa la bartaa, jaamacadaha la kala aadaa, shaqooyin. Maalinka marka waa resting day, relax, madaxa lagu dejistaa. Marka haddana beautiful waa maasha Allah, meel oo qurux badan. Hadda maadaama waddankeena uu ku soo noqonayo yani recovery oo soo kabsanayo, just very good. waa tahay daawadayaal, Pizza House ayaan joognaa oo ah runtii goob dhalinyaro fara badan ay yimaadaan oo lagu nasto, qeybaha kala duwan bulshadana ay isku arkaan. Maalmaha khamiista iyo jimcaha ay aad u shidan tahay, waana goob xataa carruurta la keeno sida aad arkaysaan. Marka qeybahan oo kaleeto waxay ku soo badanayaan ama goobahan waxay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaana sanooyinkii dambe laga furayay meelaha lagu nasto, dadkuna isugu yimaadaan. Muuqaalkeena kaleeto haddii ay barnaamij ka noqdo waxaad ku arki doontaan ama aynu ku tegi doonaa xeebta Liido oo ah meel kaleeto oo khamiista iyo jimcaha aad loo soo buux dhaafiyo, iyadoo sidoo kaleetana maalmaha kaleeto la yimaado. Xeebta Liido waa goob ay soo buux dhaafiyaan dadweyne fara badan, kuwaasi oo ka yimaada dunida dacaladeeda, haba ugu sii badnaadeen dadka reer Muqdisho. Liido ayaa ah goob aad u mashquul badan, gaar ahaan maalmaha khamiista iyo jimcaha. Sheekada sida weyn ii soo jiidata ayaa ah in reer Muqdisho ay ku guuleysteen inay dhisaan waddada sayidka oo horey looga qoostay in la maro, hase ahaatee haatan ka mid ah waddooyinka ugu socodka wanaagsan caasimadda. sanad ka hor horta wadadan waxay ahayd way burbursaneed, waddo jajabsan oo gaadiidku aysan mari karin, oo xataa maritaanku dadku uu dhib ku ahaa bay ahayd waddadu. Run ahaantii burburkii wadadan sanad ka hor ka jiray, ereyadan oo dhan buu saameeyey. Isku socod gaadiidka ma jirin, sida hadda ay gawaarida isku dhaafayaan ma jirin, populationka badan ma jirin. Run ahaantii saameyn aad iyo aad u weyn. Beach View waxa ay ku taallaa xeebta Liido. Jawigeeda ayaa ah mid soo jiidasho leh qof kasta oo taga, waana goob camiran maalin iyo habeen. Qaar ka mid ah dhalinta ku caweynaysa ayaa TV-ga Universal u sheegay in goobtan ay yimaadaan inta badan, gaar ahaan xilliyada ay nasanayaan. meeshaan dee arkiis waxaa la yiraahdaa Beach View, waa goob la yimaado oo dadku ay ku caweeyaan. runtii isbeddel weyn ayaana ka jira guud ahaan magaalada Muqdisho. waxaa aad u adkeed meeshaan in la yimaado 5 sano ka hor. isbeddelada dalka ka jira awgeed iyo nabaddii soo noqotay iyo bilicdii dib u soo noqotay darteed waxay keentay inay dad badan ku soo dhiiradaan inay yimaadaan xeebta. magacaygu waa Xamdi, meeshaan waa Beach View, waa goob aad u qurux badan. waxaa imaadaa kalbihii markaan shaqooyinka maaragta culculus soo qabto, xeebtay saaran tahay. waa meel aad u qurux badan, waxaa iskugu imaata asxaab badan, ardaydii, shaqaalo, dad maaragta caruur inta waa imaadaan. maalmaha jimcaha khamiista saaida loo imaadaa.
beach view ma ku nastaan shacabka oo keliya balse waxaa dhankooda yimaada mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya sida uu noo sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye kaasi oo xilligaasi ku nasanayay halkaasi. beach view waxay ku taallaa badday ku taallaa Liido waa meel maaragtay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan ay u soo damaashaad tagaan oo hameenada waliba jimcaha kale jimcuhu soo galayo kale madaxda ka tirsan dawladda hameen kasta way yimaadeen laakiin inta badan maadaama ay tahay bariyo kale jimco caawo kale aaday madaxda u timaadaa taasna waxa keenayda meesha ay ku taallo oo ah badyani oo meesha kaliya oo jawiga lagu bedesho ah aad u qurux badan iyo ammaanka magaalada ka jira intaas iyadoo isku kaashanayda ayaa madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed yimaadaan oo soo damaashaad tagaan. inkastoo xilliyada qaar qaraxyo ay ka dhacaan magaalada misana Muqdisho waa mid ku sii socota wadada horumarka iyadoo reer Muqdisho ay ku haminayaan inay gaaraan hiigsigooda oo ah caasimadda oo ka siman bilic iyo ammaan wanaagsan. Maxamed Maxamuud Aadan TV-ga caalamiga Universal Muqdisho.